بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaasheena meel walba aad ku sugan tihiin waa halkan waa radio mustaqim oo aad kala socon kartaan waraysyada xiisaha badan aan la yeelanayno mas'uuliyiinta culimada diinka aqoon-yahanada iyo wali waxgaradka Soomaaliyeed waxaad sugaysaanba waa barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan bishan mawlid barakeysan nabigeena dhashay calayhi salaatu wasalaam aan ugu talagalnay inaan dadka dadweynaha na dhegeysta aan uga qabtirno waxaan noogu martiyaa barnaamijka talow waa sheekh cabduqaadir sheekh maxamed mataan oo ku magac dheer sheekh culow kana tirsan culimada diinka caanka ka ah dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho sheekhu wuxuu ku sugan yahay Kuala Lumpur Malaysia waxa uu khadka si toos ugu jira marka kan aan idin hadlayo sheekh ku soo dhawo barnaamijka marka hore waa ku dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مركز روحا آدي آد كاغا مهنقينا حلقا هي وقتك قالقا نوهرتي إنا محلها أمد أفايديسو سؤالها كويدين وسؤال مولد كقصار صن سيدا عن جعلنا هاي شيخ بشي مولد با عرطي بشان مركي دالة تعالى با ضد با محلها ضد مسلمين تشويش با لقليا وحلي المولد كوحوي حاران با ليرا هذا ولما ديقي كرو dadka qaarna qori caaradis ayaa masaajidii loogu kor fadhiyaa oo waxa leeyahay ma dhigi kartaan waxa la yiraahdo mawlidkan sida aan la soconno waa adi un baa noo sharxi doontid oo waxa la sameeyo waa siirada nebiga iyo khayraadkaas sheekh sidii ka dhacday maalin dhaweyd sida nagu maqaala magaalada Jowhar oo kale waxa ka dhacday in masaajid hortiisa qoryo loo istaagay culimadii la yiri waxa dhigirtaan mawlid mare ama munaasabadaas nebiga laga sheekeynay islaam waqtigu dhashay iyo jihaadkii soo maray iyo arimihii islaamka ku soo kordhiyay maxay tahay fikirka ka dambeeya in la joojiyo oo heer noocaas oo kale ah qori loo hor istaago masaajidda bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala milad al-mustafa mawsim al-afrah wal-ibtihaj was-surur li ahli al-iman wa ja'ala shahra wiladatihi sallallahu alayhi wa sallam awanan li ta'arrud an-nafahat al-muhammadiyyah wa shamala ala ahli al-muhabbati min barakatihi kull fadlin 'amim وميز أهل النفاق بسيماهم في هذا الشهر من المقت والكراهية لما يشاهدونه من الاحتفال والتعظيم لسيد البرية ولا عجب إذ يعرف المجرمون بسيماهم فهم مشهورون بتلك الصفات الدنيئة والسلوكيات الساقطة اللا أدبية وبئست صفة إذ هي صفة أعداء الله ورسوله من الكفرة والفجرة والمبتدعة والمنافقين ولله ذر الحافظ أبو شام حيث قال وفيه إغاثة للكافرين والمنافقين أما بعد ولا ليال مركه هري وحن لكم سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أن أقود به جوابت سؤاشة وإسكعد هاي حل قانو كالمركي لقاره واحتفالك موليدك رسولك عليه الصلاة والسلام waqtigii la weyneynayay inay isla qayliyaan oo isla dhawaaqaan bidcooyinka gaalada yahuudda iyo qaybo badan oo ahlu baadil inay isla dhawaaqaan taasoo yaani waxyaalo badan culimada islaamku markay ka hadlayaan ay ku sheegeen oo ku fasireen haddii waqtiga noo saamaxana aan wax ka sheegi doono horta waa marka koowaade sida la og yahay cadaawad la cadaaweeyo nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo ambiyadii ka horeysay wax hadda bilaabanaya ma ahan wax soo jireen waaye oo xilli hore soo bilowday yahuudda ilaahay subxaanahu watacaala markuu qur-aanka uga sheekeynayo wuxuu leeyahay wayaqtuluuna alambiyaaa bigayri xaq ambiyada waxay ku leynayeen xaq la-aan ayay ambiyada iska layn jireen oy dili jireen waayo sidaasoo kaleeto nabi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi way sumeeyeen ilaahay subxaanahu watacaala wixii ay ka rabeen isla markaa oo nabigu inuu halkaa iyo goobta uu ku geeriyoodo ilaahay wuu ka badbaadiyey risaaladiisiina wuu gutay waqtigiisii ilaahay ugu talagalay ayuuna nebigu ku wafaaday oo ilaahay ku obsaday laakiin rasuulku wuxuu sheegi jiray mar walbaba suntii yuhuuddu ay sumaysay inay kusoo kacayso ayuu sheegi jiray salawaatullaahi wasalaamu calayhi yuhuudda makrigooduna aad u badan yahay muqaaranada marka hadda ka dhaxaysa oo aan ku sameynayno yahuudda iyo dadka diida ihtifaalka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ka siman yihiin
inay diidaan rasuulka tacdiimkiisa waqtigan oo kaleeto oo hadda la joogo dhacdooyin hore marka la iska daayo oo laga soo tago kuwa kitaabada ku yaala kuwa taariikhda ku yaala marka laga soo gudbo waxaa la ogyahay waqtigan hadda la joogo oo ixtifaalka rasuulka loo dabaaldegayo yahuudda Scandinavian-ka wadamada la yiraahdo jooga waxay sameeyaan sawiro karikatoriga ah oo sawirada sawir gacmeedka ah oo xayawaano sida doofaarka oo kaleeto iyo eeyga iyo daayeerka oo kaleeto iyo kuwa jinni u eg oo aad uga sii fool xun ayay waxay ku soo sawiraan joornaalada maxaa la yiraahdaa meelaha isku yimaadeen oo maaragtay maxay ahayd ay ku kulmaan markaas ayay rasuulka ku caayaan salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay nabiga ay yiraahdeen waxaan yaani meeshaan ku soo qornay waa Muhammad ayay yiraahdeen waqti kalena kuma beegaan waxay ku soo beegaan waqtigan oo kaleeto oo rasuulka ixtifaalkiisa salawaatullaahi wasalaamu calayhi hadaba taas marka waxa aad iyo aad u sii akiday oo sii xoojiyay bidcooyinka maanta jira oo ay ugu weyn tahay ama ay ku kulansan yihiin magacooda bidcada wahaabiyada la yiraahdo caalamka islaamka marka hadii aan u laabano hor iyo dib wax ijmaaca waaye oo lagu kulansan yahay ixtifaalka loo sameeyo mawlidka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi qofkii wax akhriya waxna qora oo aan ummi ahayn wuxuu og yahay markuu fiiriyo kutubta maraajicda islaamka markuu fiiriyo dhamaantood inay wada sugayaan oo ay ku wada jirto sidii loo weyneyn jiray ixtifaalka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi xufaada islaamka ee sugaysa aaday u fara badan yihiin laakiin misaal ahaan haddaan ka soo qaadno waxaa ka mid ah xufaada waaweyn ee xaafidka Abu Shama Sheikhul Imaam an-Nawawi waxaa ka mid ah Imaam an-Nawawi naftiisa oo kitaabkiisa Bustaanul Caarifiin ku qoray يعني هذا العجيب لأوليه هي وقد وقع من الآيات في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينكره منتم إلى الإسلام وحاد عيوليه هي النبي عليه الصلاة والسلام مركي أول شيء وحيال عجائب له وقف إسلام لماذا كو أبتر صدا أنو إنكير كرين markaas wuxuu soo qaatay waxyaalihii irhaasaadka ahaa iyo sidii ilaahay uu u weyneeyay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ixtifaalkiisa qof dhalashadiisa sidaas loo weyneeyay oo kaleeta aanay jirin ayuu soo qaatay Imaam Nawawi halka ku xusay waxaa ka mid ah xufaada islaamka ee ka hadlay in yaani mawsim loo sameyn karo in la weyneey karo waxaa ka mid ah xaafidka la yiraahdo xaafidul Casqalaani ee kitaabka Fathul Baari la yiraahdo sharxay Bukhariga sheekha iska leh ayaa asaguna sidaas oo kale sheegay xufaada waaweyn oo islaamka kamid ah waxaana hadalka ka soo guuriyay xaafidka kale asagana oo hadalka ku raacsan Jalaaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuudi kitaabkiisa Husnul Maqsad fi Amal al-Mawlid ayuu ku soo guuriyay asagoo sugaaya oo leh waliba waxaa loo hayaa mawsim in loo sameeyo oo sanad guuro loo sameeyo daliil cad kaas oo u soo qaatay imaamku xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam oo Madiina maalintii uu yimid oo ku arkay yahuudiyo sooman markaas ayuu nabigu weydiiyay kaleey salaatu wasalaam maxaad u soomantihiin markaas waxay yiraahdeen nahnu nasuumuhu shukran lillahi ta'ala ilaahay ayaan u shukrinaynaa oo sidaasan u soomanahay waxa waay maalintii uu nabi Muuse ilaahay badbaadiyay marka nabigu ma uusan dhihin sanad guuro la soo dhaafay يعني النبي موسى ولا أجيهاي كمان يالسنا أوضح حيسا هي النبي جانا صلوات الله وسلامه عليه سنة جوران تاس لقد جوجه هاد أسمعين إنسان موسى لهنا النبي هو صغير نحن أحق منكم بموسى فسام وأمر بصيامه سيدا حديث كقصة النبي هو صامي مؤمنين تينا وأمري إلى الصومان وحنا يرى أنك إذا كان حقنا ما بدن يهودي لأنه يهود ما يسن راعين النبي موسى ما يسن راعين sida daraadeed ilaa maantadan la joogo yawm Ashura marka la soomayo soomka maalinta tobnaad oo bisha zaka la yiraahdo sanadka islaamka ugu horeysa la soomayo waxa way maalintaas ayay ka soo jeedaa sidaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku saleeyay marka ayadoo sidaas adiladaas ay u leedahay culimada islaamka xufaadu saas ay uga qaateen halkaana aan waliba lagu soo koobi karin xufaada islaamka ee sidaas oo kale u qaatay حافظ كوين ابن رجب الحنبلي كتاب كيس لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف كتاب كوكو مغعابي
wuxuu sheegay in maalinka 12 rabiicul awwal ay tahay maalintii nabigu uu dhashay salawaatullaahi wasalaamu calayhi. kitaabka magaciisa kaliya ayaana waxa laga qaadanaya mawaasimta sanad guurooyinka in la qadarin karo iska dhaaf gudaha kitaabka ee waxay ku dhigan tahay kitaabka magaciisa ayaaba sida ah. marka yaani taasi ila tagin yaani waxaan ula jeedaa muqaaranada marka ka dhaxaysa haddii aan u soo laabto dadka cadaaweynaya oo gaalo iyo isku jira dad muslimiin sheeganaya isku jira maanta waxa waxay ka siman yihiin oo fi khandaq waahid hal kaliya oo safa ay ku jiraan inay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi u quuri waayaan in loo sameeyo ihtifaal dhalashadiisa. mana jirto mana la maqlin weligeedna lama arkin ummad baabi'inaysa oo tirtiraysa taariikhda ay leeyihiin iyo hoggaanka diineed ama maaragtay maxaa la yiraahdaa wadaniyadeed oo ay leeyihiin taariikhdiisa baabi'inaysa oo aan wahaabiye ahayn ala wajhi al-ardi caalamka lagu ma arkin mana jirto. marka sidaa daraadeed wax kale lagu fasiri karo haddii aan marka soo gaabiyo waxay noqonaysaa laba arrimood baa mid lagu fasiri karaa. midda koowaad waxa lagu fasiri karaa inay tahay jahli wax jahli u geynayo oo asbaabaha bidcinimada keena iyo dalaalka iyo baadida aba baxthi la sameeyay wuxuu ku soo koobayaa 3 arrimood kale inay ka timaado waa jahli iyo xasad iyo bukhli. yani jaahilnimo iyo xaasidnimo iyo bakhiilnimo waa jahliga marka midda ah waxay u haystaan oo isaga darsan ixtiraamka iyo qadarinta iyo weynaynta iyo waxa la yiraahdo caabudida ayaa isaga darsan. haddii nabi la sheego iyo haddii weli la sheego iyo haddii macallin la sheego iyo haddii waalid la sheego intaba waxay leeyihiin waa la caabuday. yani wax qadar iyo xurmo ah oo cidna ay u hayaan ma jirto haba yaraatee. marka sidaas daraadeed waxay noqonaysaa caabudida iyo waxa iskaga darsan ixtiraamida iyo qadarinta iskaga darsan. taasi waa jahli. midda labaad oo ayadana ku xambaari karta waxa weeye waa wax xasad la yiraahdo. xasadka waxa weeye inay u quuri waayaan nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi inuu maqaamkan oo kale mutaysto inay u quuri waayaan. taas ayaa waxay noqonaysaa xaasidnimo ayay noqonaysaa. xaasidnimadana waa arrin aad u xun khaslad aad u xun waaye. waxay ka soo bilaabatay sida la og yahay maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yiri ibliis u sujuud nabi aadam u sujuuda uu yiri malaa'iktii ibliisna markaa goobjoog meesha uu ahaa oo asagana la amray inuu u sujuudo. markaasna ibliis uu diiday oo ka xasday oo u quuri waayay inuu u sujuudo. halkaasay xaasidnimadu ka soo bilaabatay. marka yaanay isku darajo ahaan xaasidnimadu way kala weyntaa ilaa berigaasna way soo socotay waay. marka wax kasta oo ilaahay nicmo uu siiyo ama qadara uu siiyo qofka haddii uu u quuri waayo qofka kaleeto waxay noqonaysaa xaasidnimo ay noqonaysaa waay. marka waxaan kusoo koobi lahaa labadaas arrimood midkood inuu hayo ama labadaba ay isku darsadeen ayaan kusoo koobi lahaa waxa ku xambaari kara. sheekh aad baad mahadsan tahay. ururkan aad adigu magaciisa sheegtay in diidan mawlidka in la dhigo waa wahaabiya qolada lagu magacaabo. wahaabiyadana sidaan ognahay waxay dhigaan isbuuc la yiraahdo isbuucii maxamed cabdulwahaab oo ah sheekh maxamed cabdulwahaab ay raacsan yihiin oo magacaaba ka yimid. isbuucaas waxay ka hadlaan taariikhdiisii iyo waxay soo bandhigaan buugaagtii iyo kutubtii uu qoray. maxay marka u diidayaan hal maalin oo nabiga calayhi salaam la dhigo mawlidkiisa ama la iskugu yimaado? maxay u diidayaan haddayba 7 maalmood ay iskugu soo baxaan meel walba gaar ahaan meelaha ay ku badan yihiin? maasha allah waa cajaa'ib arrin yaab la waaye. ruux asagoo wixii uu diidayay haddana samaynaya oo kula jira faraha kula jira wax kale marka lagu sheegi karaa ma jirto. waxa waaye inuu ilaahay kashfinayo oo ilaahay fashilinayo baadilkooda ummadana indhahooda in lagu tuso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadarayo. marka maalmaha ay sameeyaan oo ah sida isbuuca sheekh maxamed cabdulwahaab waa sheekh ayagu ay ka soo jeedaan oo haddii ummadda caalamka islaamka oo idil culimadoodu ay isku raacaan shay isku raacaan isaguna uu gooni noqdo isaga ay qaadanayaan waay. horta marka ugu horeysaaba taasi waxay tahay wax ula jeeda ah dalaal cad in jidka ala sabiil mu'miniin in laga leexdo waman yushaqiq rasuula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabiil al-mu'miniin
nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masiran uu yiri ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka yacni ka leexda sabiilul mu'miniin waa jidka ijmaaca lagu yahay sida marka aan soo sheegnaba cid ka leexatay ama khilaaftay oo dunida dusheeda ku sugan diiday ma jirto ihtifaalka mawlidka rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi hatta ibn Taymiyyah iyo ibn Qayyim oo ayagu markii Maxamed Abdul Wahhab ay ka gudbaan labada sheekh oo wax ka qaataan ay yihiin hatta way sugeen oo ihtifaalka rasuulka salawaatullaahi wa salaamu alayhi iyo mawlidkiisa way sugeen ibn Taymiyyah kale wuxuu ku sugay kitaabkiisa iqtidaa'u siraadil mustaqim la yiraahdo ayuu ku sheegay waay marka waxay keenaysaa in cid kasta ay ka leexdeen oo kaligood ay noqdeen dadkuna markay shaad noqdaan oo sidaas oo kale shaad ay u noqdaan waxa waaye baadilkooda wuu soo degdegaa ayaga naftirkooda waxa lagu saladaa gacmahooda inay baadilkoodii sabab ugu noqdaan inay dadkii ku tusiyaan marka wax kale taas lagu fasiri karaa ma jirto waxa weeye in baadilkoodii si fiican loo arkaayo laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala cidii uu waafajiyo baa waafaqi karta qeyl kale iyo wax kale ay u sameey karaanna haba yaraatee ma jirto marka bidcooyinka ay sameeyaanna intaas wada ka sii fara badan yihiin salaadan tahajjudka oo ay leeyihiin waa tahajjud oo dadka inta habeenka madow lagu soo jafo maxaa la isku keenayo ma nabiga sameeyay salawaatullaahi wa salaamu alayhi nabi maxamed miyaa sameeyay muxuu ahaa dadka muslimiinta ah in la gaalaysiyo oo takfiir lala daba joogo oo wax kasta oo aysan raacsanayn takfiir loo sameeyo oo loo sameeysto saddex tawxiid oo tawxiid al-uluhiyya tawxiid ar-rububiyya tawxiid al-asmaa'i wa sifaat la yiraahdo ma nabiga ogaa oo tawxiidka saas u kala saaray rasuulku wuxuu sheegay salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo uu ogaa kaliya tawxiidka la yaqaano oo ah laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ayuu rasuulku ka tagay mana uusan ogeyn tawxiid kale la kala qaybiyo si kale loogu dhawaaqo tawxiidkana cid taqaana ma jirto hadii mid umsan loogu dhawaaqo ayaga waxa la weydiin lahaa oo laga rabaa kuwa kale tirada badan leh bal sida loogu dhawaaqo inay dadka u sheegaan marka bidcooyinka ay sameeyaan aad u tiro badan yihiin inta kaliya kuma koobna taasina waxa waaye wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kashfinayo baadilkooda sida ayaan dhihi lahaa sheekh aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga qaaliga aad na siisay mar labaad waan kaaga mahadnaqaynaa bahda Radio Mustaqim ugu dambeyntii maxaad ula dardaarmi lahayd dadka muslimiinta ay ku dhageysanayaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa ku sugan dadka muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo walaahow ay ku rideen wahaabiyiinta iyo bidcadu ay qaseen waxaan u soo jeedin lahaa maanta waad u jeedin markii anagu aan joogi jirnay yani meelaha goobaha la isku yimaado oo dadka aan wax uga sheegayno sida magaalada Muqdisho kaleeto iyo warbaahinta raadiyalka magaalada Muqdisho ku yaala dadka ummadda waxaan u sheegi jirnay war waxaani inaysan diin shaqo ku lahayn dadkaanina aanay diin wadin maanta waqtiga dad badan waxay dhihi jireen culimada xafiiltan ka dhaxeeyo ayaa jira annagana ilaahay baan daalacnay subhanahu wa ta'ala xafiiltan naga dhaxeeyo ma aanay jirin laakiin waxa noo muuqday waxaana inaysan ahayn diin shaqo ku lahaynin wax diin lagu mataalo ama yani u egna aysan ahayn hatta shaqo aysan ku lahaynin sidii way soo baxday maanta waa farahii ayay uga gubteen ummadii Soomaaliyeed handheela way u jeedin inaad ku gubateen oo ay idin meel kasta idin ku gubeen oo idin ku holciyeen oo jaamacadihii iyo ardaydii iyo masaajidii iyo shaariciyadii iyo suuqyadii meel walba ay qarxinayaan cid shahaadata aysan aqoonin islaamnimo iyo diin iyo midna shaqo aysan ku lahaynin waxaano kaleeto wax weligeed la maqlay ama diin loo saari kara aysan ahayn waad u jeedin indhiina ku haysiin daliilna waxa ugu weyn midka shahaadatul cayaanka ah oo loo jeedo oo indhaha loogu jeedo xawaasti lagu haleelayo ayaa daliil ugu weyn daliil kale u baahantiin maanta ma jirto inaanay diin wadin waa u jeedin waxaan marka idin dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed hadaa tihiin meel kasta aad joogtiin u soo laabta kitaab ee u soo laabta culimadiina u soo laabta xaqa taageera oo gacan siiya xaqa iyo diinta taageera iska difaaca baadilka iska difaaca iyo ahalkiisa hadii aad ilaahay ku oofsado oo aad ku dhimatiina yani ajraad leedihiin hadii yani aad ka guuleysataan mar walba ajraad leedihiin
culimada islaamka kaleeto iyaga oo ka madax banaan oo daacadda ah oo culimada ahlu sunna wal jamaa meelay joogaan ayagana waxaan ugu baaqi lahaa weligeedba soo jireen waxa ahayd xaqa in lagu difaaco marka ay joogto lisaanka in lisaanka lagu difaaco oo yacni dadka loo sheego wax oo la wacyi geliyo oo meel walba haday warbaahin tahay iyo haday tahay dacwad shaaric iyo haday tahay masjid gudihiisa meel walba in dacwada islaamka lagu faafiyo dadka xaqa loo sheego xaqa dadka u sheego oo gaarsiiya waa markii ay lisaan joogto markii kaleeto oo ay door bido oo ay istaagto lagana fursan waayo oo la isku yimaado nabadgelyadii laga waayo kooxaha bidcooyinka ayaga xaggooda nabadgelyo laga waayo waa lagu qasban yahay in la isdifaaco waliba waajib arrin ah ayay noqonaysaa in la isdifaaco oo la iska dhiciyo oo loo istaago sida haddaba meelo badan oo kamid ah wadankii gudihiisa looga istaagay waxaan idin dhihi lahaa iska difaaca hana dulminina cidna dulmiga waa waxay iyagu ku baaba'een ka jira inaa cidna ku xadgudubtiin iska jira inaa qofna dulmisiin adulmu dulumaatun yawma alqiyaama ayadu adinkoon cidna dulminaynin cidna ku xadgudbaynin iska dhiciya wax alla wixii baadil wada oo raba inay xoog idinku geliyaan oo idinku dirqiyaan iska dhiciya dadka awsaada ahli cilmi ah oo ayagana dalabatul cilmiga ah waxaan kula hadli lahaa oon u sheegi lahaa cid calool hooyo caloosheeda kala soo baxday iyadoo cilmi taqaanaa ma jirto cilmiga dalba fiiriya kutubta waxa ku dhigan akhriya maanta waa la soo dhaweeyay aaladihii lagu soo qoray sida internetkii oo kaleeto meel walba laga heli karaa hadda bil munaasaba mawduucan hadda aan ku jirno kaleeto ka fiiriya kutubta ku shaqada leh xusnul maqsad fi amal al mawlid jalaaluddin abdurrahman bin abi bakr as-suyuudi iskale meel kastuu yaalaa laga heli karaa kitaabkiisa al-hawi lil fatawi ayuu ku dhex jiraa internetku ku dhex jiraa idinkoo google ko kaleeto ku isticmaalayo ku raadinayo raadiya waxa kale oo jira al-laali as-saniyya fi mashruu'iyyati mawlid khayr al-bariyah waxa iskale sheekha musannafka weyn oo sheekha Soomaaliyeed ah Sheekh Umar Xidig waxa kaleeto asagana sidaas oo kale mawduucan aad ka daalacan kartaan xujjatul muhtafiliin oo Sheekh Ahmed Sheekh Maxamuud Sheekh Ahmed Shaalar uu iska leeyahay waxa kale oo jira buluuqul ma'muul fi ihtifaal mawlid an-nabawi sharif Sheekh Isa bin Mani al-Himyari waa muftigi reer Imaaraat asagana sidaas oo kaleeto kutubta la heli karo internetka ku jiro kamid yahay risaalo oo ah hawla ihtifaal dikra mawlid an-nabawi sharif Sheekh Maxamed Calawi Maliki iskale تحفة المحبين في مشروعية احتفال مولد سيد المرسلين كتابك أنا قري وأنا اسكت دوي أنا مراجع بدن يوح بدن كسو أروريي أصلا إن شاء الله تعالى مردون كسو بندقينا وحان مركا كسو قبيلها إن يعني محل هذا حالة كستسدي مناسب كتاهي لغو وجهه أو wax ka daran maanta ma jirto gaalada gaalnimadeedu way xadahay laakiin kuwaani diinta islaamka ay wax walba u saarinayaan inaan lagu kadsoomin ayaan idin soo jeedinayaa wabillahi tawfiiq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Mataan oo ku caanbaxay ama loo yaqaan Sheekh Colow Sheekh Colow iminka wuxuu ku sugan yahay dalkaas Malaysia gaar ahaan caasimadiisa Kuala Lumpur Sheekh wuxuu daraasaad islaamiye ka sameeyaa kulliyooyinka jaamacadaha ay ku yaala dalkaasi isaga oo wax ka qoray kutub badanna Soomaaliya kutubtiisa ay buuxaan waxa uu wax ka qoray mawlidka nabiga oo sidoo hadda sheekhu noo sheegay kutubka la yiraahdo tuhfatul muhibbiin fi mashruu'iyyati ihtifaal mawlid sayyid al-mursalin waxa uu sheekhu qoray sidoo kale iqaamatul baraahin fi mashruu'iyyati at-tahkiim wa at-tawliyah fi nikah kutubkaas oo ku saabsan sharcinimada nikaaha sheekhu waxa uu ka hadlay oo kale ama uu qoray bayaan fi ahkaam al-mawta wal-qubur bayaankaas oo mawtada iyo qabriyada ka hadlaya waxa uu sheekhu sidoo kale qoray kayfiyat dhikr li ahli tasawuf waxaan moodaa in kutub badan oo dad fara badan ay akhristeen oo sheekhu iyo qaar uu hadda uu soo wado oo qalinka ku hayo waxaan uga mahadnaqaynaa mar labaad sheekha waqtigiisa qaaliga uu noo huray annagana kuwii ku waana qaata oo wacdigaas alle ku anfaca ilaahu naga dhig amiin dhegeystayaal waa radio mustaqim